السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada dhammaantiin dhalinyaro inaad fiicantiin baan rajeynaya dhammaantiin muuqaalkeena maanta waa muuqaal aad iyo aad muhiim ah oo dhalinyar badanna ay soo weydiinaysay muuqaalkan waxaan kaga warrami doonaa sideeba lacag looga sameeyaa Facebook page ama Facebook page iyo Facebook profile labadaba waa laga sameeyaa lacag marka hore Facebook profile marka hore ma uuran lahayn optionka ah in lacag laga sameeyo laakiin hadda waa laga sameyn karaa marka waxaan ku tusi doonaa labadoodaba sida looga sameeyo lacagta Facebook page in badan baad taqaaneen baan filaya oo aad garanaysaan inta aan garanayna ee ku cusubna waan usoo bilaabaya insha allah haddaba waxaa jira shuruudo lagaa rabo inaad soo buuxiso sida YouTube oo kale ama TikTok oo kale sidaas lamida Facebook wuxuu leeyahay shuruudo lasoo buuxiyo marka shuruudahaas ayaan isla eegi doonaa iyo sida loo buuxiyo haddaba shuruudahani waa laba shuruudood oo waxaa kala duwan macnaha Facebook page-ka iyo Facebook profile-ka marka Facebook page-ka isagu shuruudiisuna waa gaar profile-kana waa gaar inkasta aad isugu dhow yihiin marka labadoodaba waan ku tusi doonaa insha allah ugu horreyn haddayna tagno xaggan iyo Chrome u kacno marka computer baan hadda kugu tusaya inta badan casharada waxaan kugu tusi jiray mobile isla mobilkana waan kugu tusaya weli mobilkaaba aad uga fudud markaad eegto dhinaca computerka marka halkan waxaan kusoo qori doonaa Facebook-ga si toos ah usoo geli doonaa marka Facebook profile iyo Facebook page labadaba waan ku tusi doonaa insha allah shuruudaha lagaaga baahan yahay inaad soo buuxiso okay halkan ayaan soo geli doonaa waxaan samayn doonaa Facebook ayaan si toos ah usoo geliya markaasi marka Facebook si toos ah usoo galo marka hadda halkan waan joogaa waxa weeyaan Facebook-ga caadiga ah ayaan joogaa dashboard-kiisa hore marka Facebook-ga waxaa ka dhigay mid professional ah si uu u aqbalo shuruudaha ayaa ka dhigay mid professional aan u bedelay marka haddaba Facebook page-ka iyo Facebook profile-ka waxaan ku horreyn doonaa Facebook profile-ka haddii aad leedahay Facebook profile wax kale maaha waa akoonka Facebook ee caadiga ee aad isticmaasho ee fariimaha aad ka dirto ka kalena waxaa la yidhahdaa page oo aad garanaysaa ma filaya waa Facebook page inaad page gaara samaysato ama wax gaar ah kusoo bandhigto adigoo ka dhex samaysanaya isla Facebookaaga marka haddii aan hadda ku horreyno Facebook profile-ka kana joogaada waa Facebook profile-kaygi marka ugu horreyn horta waxaad u baahan tahay Facebookaaga in aad ka dhigto si aad lacag uga samayso mid professional marka sideeba looga dhigaa bas weydiin leh mid professional mode ah ama xageeba lagaga dhigtaa professional haddii una ku ahayn professional waxaa ku tusaya isla markaasi meesha aad kaga dhiganayso professional okay ugu horreyn hadda waxaad iman doontaa aniga hadda professionalku waa ii furan yahay saad arkaysid adigu ugu horreyn waxaad iman doontaa meesha magacaagu ku qoran yahay ama magaca Facebookaagu ku qoran yahay baad iman doontaa marka magaca dushiisa ayaa si toos ah u iman doontaa marka magacaaga aad si toos ah ugu soo dul dhufato marka waa markaad isticmaalayso computer mobilkana waa isla halkii magacaaga ay kusoo dul dhufan doontaa waana ku tusi doonaa waxaad iman doontaa meeshan ayaad iman doontaa ay ku qoran tahay saddexdan dhibcood ayaad iman doontaa meesha saddexda dhibcood ah markaad timaadid kadibna waxoogaa ayaad hoos usoo bixi doontaa markaad usoo baxdo hoos waxaa kuu soo baxaya meel ay ku qoran tahay turn on professional mode meeshan ani hadda ay ku qoran tahay turn off professional mode waxay ka dhigan tahay macnaha iska xidh professional mode-ka ayay ka dhigan tahay aniga ahaan laakiin adiga waxaa kugu qornaan doontaa turn on ay halkaa ku noqon doontaa haddii turn off ay kuu tahay iska dayso waxaa kuu furan professional mode-kii laakiin haddii turn on aad halkaas ku qoran tahay on tahay waanaad ku dhufataa oo turn on ka dhigtaa micnaha halkan horta markaad ku dhufato waxay ku noqon doontaa professional haddii aad rabto inaad iska xidho turn off waad oran kartaa wax dhibaata ma laha markaad doonto turn off iyo turn on oran kartaa laakiin waxaa kula talaya marka aad tidhaahdo turn on ee halkan turn off taasi soo qoranto ee professional mode-ka lagu furo waxba dib ha u xidhin waayo waxay carqalad ku noqon kartaa fursadda aad ka raadinaysa inaad ka samayso lacagta markaas waxaad samayn doontaa halkaas ayaad kasoo dhigaysaa ugu horreyn turn on kasoo dhigaysaa okay marka meeshaasi aad turn on kasoo dhigto meesha sare markaad kusoo noqoto meesha ay halkani meeshan ay haddaad arkaysid ana waxaa ku qoran 5k flowers macnaha wixii aad haysatay ee dad ahaa dhammaantood waxay ku noqon doonaan friendska ku ahaa flowers bay ku noqon doonaan oo ase flowers baa loo soo qaadan doonaa okay markaad intaas soo dhammayso haddaba shuruudaha ayaan kuu sheegi doonaa oo muhiima inaad horta waxaan aad ka horreysay shuruudaha muhiima haddii aan shuruudda koowaad ku bilowno ama shardiga koowaad ee Facebook aad doonaya waxa weeyaan in horta Facebookaagu una ahayn mid cusub oo la sameeyey maalmo dhaweyd macnaha 30 cisho wax ka yar hadduu jiro kuma soo aqbali doono oo kama samayn kartid lacag macnaha haddii aad shuruudaha buuxinaysid waxaan ogahay horta haddii aad 30 cisho jiro shuruudaha inaad soo wada buuxin karayso maba dhacaysaba oo 30 cisho inaad gaadhaaba wanaagsan laakiin Facebookaaga waxaa kula talinayaa inuu ahaa mid muddo jiray haddii aad u baahan tahay in aad mid cusub oo imika aad bilowdana waxaad samayn doontaa
Facebook cusub ayaad iska samaysan kabacdina ilaa 30 cisho waad sugi 30 cishana shuruudaha ayaad soo buuxin doontaa shuruudda koowaad waxa weeyaan Facebookaagu inuu jiro wax ka badan 30 maalmood shuruudda labaad waxay noqonaysaa inaad haysato 5k followers oo markaan ka hadlano Facebook profile maaha Facebook page-ka Facebook page-kiisa waan ka hadli doonaa Facebook profile-ka markaan ka hadlano waa inaad haysataa 5k followers ama 5000 oo follower waa inaad gaartaa markaad gaadho 5000 oo follower waxaa kaloo lagaaga baahan yahay inaad joogto waddan eligible macnaha waddan eligible waxa looga jeedaa Facebook waddan uu ogol yahay in lacag laga sameeyo isagoo la isticmaalayo Facebook marka wadamadaasi kuma jiraan dhulka Soomaaliyeed ama wadamada Soomaalidu kuma jiraan oo ma arag wax Facebook kaga sameyn kara lacag soo waddanka jooga laakiin waxa isticmaalaa waxa la yiraahdo tricks-kana waan ku sheegayaa shardiga labaad ba hadaba wuxuu yahay isagoo saan ku soo sheegay in aad joogtid ama aad haysatid qof ku jooga waddanka dibadiisa oo ahayn dhulka Soomaalida shardiga afraad haddana eegno shardiga afraad isaguna wuxuu noqonayaa in aanad isticmaalin waxa la yiraahdo copyright-ka ama muuqaalo aanad lahayn ama muuqaalo loogooyin wata ama sawirro ama maxaa ku raadaaye qoraallo aadan adiga lahayn mar raba ha isticmaalin hadii hore isticmaali jirtay iska saar oo aad rabto imika inaad lacag ka samayso Facebook kuwaasna waxaa la yiraahdaa copyright baa la yiraahdaa copyright-ka marka waa lagu soo qabanaya iska daa oo wax original aad adigu leedahay isticmaal okay shardiyada aan kusoo sheegay waa shardiyada ugu muhiimsan ee Facebook uu xooga saarayo haddaba shuruudahan oo wada qoran ayaan ku tusaaya iyo sida Facebook kaaga rabo inaad soo buuxiso okay haddaba marka aad professional dashboard ka soo dhigato xagan computer-ka marka hadii aan sinaado kaatus profile-ka runtii kuma fiicna unus ka yar dhex dhigaya profile-ka iyo page-ka laakiin waxaan kaa tusaya dhinaca iyo telefoonka ayaan kaa tusaya xagga profile-ka web profile-ka ayaana ka fudud waxaan doonaya weli profile-ka inaan si yar dhaqsiya badan aan ku tuso maadaama Facebook profile-ka aan horreysiinayno waxaa khasaba in aan si waadax ah ku tuso marka haddii aan hadda imika tagno business facebook.com haddaan tagno waxaa suurtagala in aadan si fiican aadan u kala saarin page-ka iyo profile-ka oo labadaaba isku kaa dhex dhigo marka u kala saarin waxaan sameynaynaa oo kana fudud xagga telefoonka ayaa kaa tusaya isla computer-ka dushiisa marka waxaan ku tusi doonaa shuruudaha lagaaga baahan yahay marka aad isticmaalayso Facebook profile haddii haddaba eegno dhanka iyo telefoonka iyo sida uga soo muuqanayo ama sida adigoo telefoon isticmaalaya aad shuruudahan aad u buuxinayso ma eegayso shuruudaha lagaaga baahan yahay iyo halka aad marayso waxaa kaa tusaya dhinaca telefoonka marka hore waxay iman doontaa dhinacaasi sare sawirkaagu saaran yahay sida ku sheegay waxaa ka dhigi doontaa professional mode hadna waxaad kusoo dulfan doontaa isla magacaaga meesha uu ka soo baxo okay marka kusoo dhufato meesha magacaaga ka soo baxay waxaad samayn doontaa sida aan hadda kusoo tusay computer-ka saddexda dhibcood ayaa ku dhufan doontaa advertising xagga sare xagga hore ka xigta advertise meesha ku qoranta ka horeysa okay meeshan aad waad arkaysaa waxaa ku qoran turn on professional mode meeshan hoose halkaasi turn off hadday tahay turn on baad ka dhigaysaa inta marka soo qabato Facebook profile-ka shuruudihiisa ayaan haddaba eegaynaa halkan haddaynu nimaadno okay marka soo gasho Facebook-aaga waxaad arki doontaa meeshan oo ay ku qoran tahay professional ama professional dashboard ayaad arki doontaa Facebook-aaga aad ku arki doontaa okay halka haddaan ku arki xataa waxaad ku arki kartaa markaad kusoo dhufato magacaaga si toos ah ugu soo dul dhufato meesha magacaaga ku qoran yahay meel halkan waxaa kasoo bixi doonta meeshaasay ku qoran tahay si dashboard ay ku qoran tahay kusoo baxaysa okay haddii aan haddaba si dashboard-ka ku dhufano ama professional mode meesha ku qoran tahay aad ku dhufato isku meel ayaad iman doontaa meeshan haddaba waa meesha shuruudaha aad ka buuxinaysaa meeshan weeye meesha shuruudaha ka buuxinaysaa waxoogaa markaad kor u yar jeedo waxaad arki doontaa meel ay ku qoran tahay monetization meesha monetization ay ku qoran tahay oo meesha la doonayo in aad iska hubiso waxyaalaha lagaa doonayo iyo in aad soo buuxisay shuruudihii okay meeshan ayaad ku dhufan doontaa marka meeshan kusoo dhufato sidan ayay kugu soo baxaysaa marka sidan kugu soo baxdo waxaa ugu sareysa meeshaasi stars baa ku qoran oo stars waxa la yiraahdo adigoo iyadoo lagu soo dirayo ayaad lacag ka samayn kartaa starska haddana waxoogaa yar ku macneeyo waa sida TikTok sida TikTok oo kale TikTok waa talasku soo diro ubaxyada iyo waxaasi ama coinska waa talasku soo diro marka daawadayaashada ama dadka kugu xidhan ama dadka ku xiiseeya ayaa waxay kuu soo dirayaan gift marka giftiskaas oo stars ayaa lagu soo diraya kadibna waad urursanaysaa kabacdina lacagana ayaad bedelinaysaa kaama doonaya inaan xoogga saarno oo waxaan doonaynaa inaan muuqaalada aan soo gudbino ama sawirada aan soo gudbiso aad lacag ka samayso okay optionkaas waa optionka koowaad ka haddan soo dhaafno kan ku xiga waxa weeye ads on reels kana aad ayuu muhiim u yahay waa reels waa sida TikTok oo kale muuqaalada sida TikTok u samaysan oo kale ama sida history-ga
ay u samaysan yihiin kolka reels baa la yidhahdaa muuqaalada reelsku aad u wanaagsan yihiin muuqaalada reelska ee aad soo gelisa iyagana lacag waad ka samaysa haddaba aan ku dul dhufano reelska ama muuqaalada taagtaagan ama muuqaaladaasi sida tiktok oo kale ah shuruudaha lagaga baahan yahay inaad soo buuxiso sida muuqaalada caadiga si lamida in aad shuruudaha isagana soo wada buuxiso shuruudahaasoo ah in aad soo gaadho 5k followers iyo in aad haysato 60,000 oo daawasho 60kii maalmood ee u dambeysay marka xagga shuruudaha waa iskaga mid halkan wuxuu kuu soo dhigi doonaa marka shuruudaha kale dhammaantood aad soo buuxiso meeshan ani hadda waxa igu qoran weli ma tihid available baa igu qoran meeshan hoose markaasi macnaha wuxuu ka wadaa xagga countryga markaad eegto country available hadda ma joogo in haddii aan countryga bedelo sida loo bedelana waa idiin sheegaya bedelo waxay noqonaysaa khasab meeshan inay available ay noqoto oo aan ka samayn karo lacag macnaha marka shuruudihii kale ee soo buuxiya sida 60,000 ama intii daawashada laga doonayay marka soo buuxiyo isna sidaas lamida meeshan waa ay furmaan okay kana haddaan kasoo laabano meesha ku xigta waa meesha ku qoran tahay bonuska hoosteeda waxaa ku qoran invite only kan Facebook oo keliyata ayaa kugu soo casuumi doona marka muuqaaladaada iyo waxaa inay tayo leeyihiin ay arkaan ama la xiiseynaya hadday arkaan bonuskan way kugu soo share gareyn doonaan iyagaa kugu soo invite gareyn doonaan marka kan waa invite keliyata isaga iyagaa kolkaasi marka ay muuqaaladaada iyo maqaaladaada waxaasi ay arkaan inay kuwa aad u fiican yihiin iyagaa kuu soo diri doona invite kolka invitekaasi ka faa'iideysan doonto iyagana si kaleeto maaha sawirada ama qoraalada ama wixii aad soo gudbinaysay sida caadiga aad ugu soo gudbin jirtay facebookaga ayaa lasoo duldhigi doonaa xayisiin adna xayisiintaasaad markaas lacag ka samayn doontaa haddaynu kaa soo dhaafno kan inta ugu badan commonka ee lasla yaqaana waa kan ayaa in badan jiray oo isagana commonka lasla yaqaana hadda waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa instream artist kan waxaa ka mid ah muuqaalo aad soo gudbisay ama sawiro ama wax wal oo aad soo gudbiso in lasoo dhex dhigo artist macnaha xayisiin inay facebook soo dul saarto markaasi kan shuruudihiisa haddaba ayaynu eegaynaa shuruudaha kan haddaad buuxiso kuwa kale iyaguna waa lamid haddaba kan shuruudaha saxda ee facebook lacag looga sameeya waa shuruudaha meeshan ku qoran inaad buuxiso inta meeshani ku qoran waa inaad buuxisa kow meesha u sarreysa waxaa kugu qoran waa inaad joogtaa buu kuli wadan eligible ama wadan la ogol yahay in facebook lacag lagaga sameeyo waa inaad wadankaasi joogtaa haddiise aadan joogin waxaa ku sheegi doonaa triga isticmaali doonto waa inaad raacda shuruudaha u yaal facebook ama siyaasadda facebook macnaha inaad soo gelin muuqaalo aan anshax xumo ah kuwa la dilayo kuwa ka hadlaya qabyaaladii waxaa lasoo qabyaalad iyo ama cay ama waxyaala la hilmaana waxyaala xunxun oonay dadku jeclayn report laga gudbiyo way kaa xidhayan facebook sidoo kale muuqaalada waxyaalaha la dilaya iyo waxaa dhiigga iyo waxa la socsocdaan ma ogola facebook marka waa iska ilaalinaysaa sidoo kaleeta waa facebook profilkan weli dul joognaaye waxaad arkaysaa inuu ku yidhi waa inaad gaadhaa 5k followers kolka 5k already waan gaadhaa aniga halkani marka 5k followers waa inaad gaadhaa marka professional mood ka dhigto waxaa liixi kugu jira friends wax isku bedelayaan followers haddaba hoos soo soco meeshan waxaa ku qoran waa inaad muuqaaladaadu ay gaadhaan celceliskooda marka laisku celceliyo 60kii maalmood waa inaad haysataa 60,000 oo daawasho haddii aad haddaba haysato haddii aad tahay dadka horta muuqaalada la xiiseeyo soo gudbiya ama fursad ku haya facebook ay dadku maalintii wax soo gudbiya maalinta 2,000 3,000 waxaas ku daawanayaan waxaan ogahay xataa 1,000 haddii ay ku daawanayaan muuqaaladaada oo aad ogtahay in 1,000 ku daawanayaan muuqaaladaada waxaan ogahay inaad si dhib yar usoo buuxinayso 60kaasi maalmood waayo 60 maalmood haddii aad ku dhufato 60kaa maalmood aad soo geliso aad soo geliso 20 muuqaal oo muuqaalkiiba ay daawanayaan 4,000 ama 5,000 waxaasi way kusoo gaaraysaa runtii marka waxaa waajib ah 60kii maalmood ee u dambeysay waa inay muuqaaladaada ay hal muuqaal uu noqon karaa hal muuqaal hadday daawadaan 60,000 oo minute ay daawadaan celceliska marka laisku celceliyo ay daawadaan dadku waa okay hal muuqaal hata mu ahaado waa okay marka waxa laga baahan yahay in aad 60,000 aad soo buuxiso oo markaad facebook profile isticmaalayso halkan u hooseysa ama ugu dambeysa waxaa ku qoran wuxuu ku leeyahay facebook waa inaad soo gelisaa 5 muuqaal muddo 3 cisho gudahood waa inaad 5 muuqaal soo gelisaa marka macnaha iminka soo geli ma haddii aad hore u soo gelisay already way kugu jiraan haddii aadan muuqaalo aanad soo gelin jirina inaad 3 muuqaal soo gelisaa ugu yaraan waa muhiim marka maadaama muuqaalada aad loo xiiseynayo oo la rabo in muuqaalada lasoo dul saaro xayisiinta waxaa muhiima markaasi in aad 5 muuqaal aad soo geliso oo 5 muuqaalba ay nadiif yihiin copyright ayna la soconin hataa live ahaadan kuwa live way ku jiraan okay inta haddaba aad soo buuxiso facebook profile wuxuu ready u yahay inaad lacag ka samayso marka kaa u sareeya ayaan isagana idiin sheegi doonaa haddaba sida aad isagana
adeen u soo buuxinaysaan laba hab ayaad u buuxin karaysaan waa inuu qof ku jooga waddanka dibaddiisa oo aad ama dadka aan dhalinyarta ama asxaabta ama qaraabada aad ku xidhan tahay oo aad facebookkaaga admin aad uga dhigtaa macnaha qof aamin oo admin uga dhigayso waa inaad heshaa marka isaga ayaa muuqaalada ayaad samayn doontaa adiga keliyaata muuqaalada dibadda soo gelin doontaa muuqaaladuma si toos ah soo gelin marka adigu macnaha inaad isticmaasho maaha facebookaasi waa inaad ku isticmaalo waddanka gudihiisa hal mar umaad isticmaali kartaa taasina waa fursad aad u fiican iyadana waa kuu sheegayaa marka horta habka koobaad waxa weeye in qof aad ku xidhato waddanka dibaddiisa jooga oo aad facebookgaagii aad admin uga dhigto markaad admin uga dhigto muuqaalada waad u diri kartaa oo soo geli baad odhan kartaa haddii una haleelayna waa suurtagal inaad VPN aad iska isticmaalay aad soo kiciso kabacdina aad muuqaalka geliso kadibna si degdeg uga soo noqoto taasina waad awoodaysaa talabaad waxaad isticmaali doontaa waxa la yidhahdo Amazon ADS ama Amazon Web Service waxa la yidhahdo ayaa jira oo Amazon ayaad ka furanaysaa ama way jiraan kuwa kale oo iyaguna la adeegsada laakiin Amazon baynu adeegsan doonaa si aan muuqaalada dama ku tuso marka Amazon ayaad ka furanaysaa ADS waxa la yidhahdo oo ah Amazon Web Service wax loo soo gaabiyey marka waxay ku siinayaan computer ayay ku siinayaan virtual ama cloud computer bay ku siinayaan cloud computerkaas marka waxa weeye computer macnaha softwarekiisii wixii dhan way ku wada jiraan marka computerka waa computer caadi ah oo aad isticmaali karto ay ku siinayaan laakiin computerkaasi maaha mid adiga is lagu siinaayo waayo dee waba hawadu uga taagan yahay computer hawada taagan laakiin waa lagaa kiraynayaa kiradaasina sanadka u horeeya waa free si waxaan aad u tijaabisan kuu shaqaynayo in kaleeto sanadka dambe waad ka noqon kartaa wax dhibaataa ma laha keliyata sanadka u horeeya unbaad si free u isticmaalaysaa marka adeegyada aad u baahan tahay hadhowna aad iibsanaysaa marka khasama inaad wada iibsataa laakiin adeegyada qaar ayaad iibsan doontaa marka haddii de Facebook uu ku hirgalo hawshiisu sarjinaya insha allah marka waxaa isticmaali doontaa oo ugu wanaagsan waxa la yidhahdo ADS oo Amazon ay bixiso oo ah computer adiga lagu siinaayo marka computerkaasi ayaan ku tusi doonaa isagana sida loo furto kabacdina loo samaysto computerkaasi kabacdina aad Amazon dhexdeeda uga furanayso kadibna aad adiga si iskaaga aad computerka u maamulo doonto kabacdina aad computerka dhexdiisa Facebookkaaga aad ka soo gelayso kadibna muuqaaladaada iyo waxaagaas oo dhan aad halkaa ka soo gelayso markastaba Facebook isticmaalso taasi waxay ka dhigan tahay macnaha inaad tahay qof jooga waddankaasi waddanka doontaad ka dhigan kartaa marka laakiin Amazon baad ka dhex furanaysaa waddanka doontana computerka id waad ula haddii aad u baahan tahay hadhow toole inaad qof bangigiisa isticmaasho qofkaasi waddankaasi uu joogo ayaad odhanaysaa computer yaalla Amazon ay ii fur marka Amazon baa kaaga furi doontaa anyway kaasina xagga dambe kaa tusi doonaa oo waa iska fudud yahay isagana muuqaalka xiga insha Allah rajaynayna isagana aan kusoo sheego isagana ku tuso macnaha saa loo furanayo marka muhiimaddu waxay tahay horta shuruudaha inaad buuxiso oo haddaan hal mar ku dul maro waa inaad 5k followers-ka aad soo buuxisaa waana iska ilaalisaa muuqaalada aadan adigu lahayn iyo muuqaalada xunxun soo kaleeto waa inaad 60kii maalmood ee u dambeysay muuqaalada ay haystaan 60 oo daawasho oo macnaha views waa inaad soo gelisay 5 muuqaal oo free ah oo iyaguna nadiif ah inta haddii aan kasoo gudubno muuqaalada waxa wanaagsan marka 2 daqiiqo 3 daqiiqo inay ka badnaadaan wixii ka yar 1 daqiiqo waxaas reels bay isku bedelaan si kale marka loo xisaabinayo okay kaas hadda waa Facebook profile-ka sida shuruudihiisa aad u soo buuxiso ku saabsan kulli su'aalo badan buu yeelan doonaa isagana waan insha Allah ka caawin doonaa okay haddayna kaa soo dhaafno kan hooseeyna subscription-kii waa sidii YouTube subscription oo kale subscribe baad ka noqonaysaa markaasi Facebook oo waa sidii caadiga ahayd kaas ayaa waxa inuu keenoo socono maaha muhiimna nooma aha kuwa ugu muhiimsan waa kan iyo kan ay reels-kana haddaba haddii una reels-ka kuu furnayn oo reels-ka aanad haysanin waxaa la arkaa reels-ka waxaad ku arkaysaa markaad Facebook xaggiisan sare timaado markaad Facebook sana u timaado meeshan waxaa ku qornaan doonta create history iyo create reel hadda anaha meeshan ay reel ugu qoran tahay reels ayaan dhigi karaa marka muuqaalada reels-ka verticalka kor taagan ayaan dhigi karaa kabacdina muuqaaladaas aan iyagana lacag ka samayn karaa okay reels-kaasna isna waa sidaasi oo haddaba reels-ka waxaa jira isagana si loo furto haddii uu reels-ku inta badan active ma reels-ka waa la codsadaa waxaad u tegi doontaa qaybta Facebook waxaad tegi doontaa setting ayaad tegi doontaa qaybta helping kabacdina waxaad oran doontaa reels-ka ayaa iga xidhan reels-ka ii furan marka muddo kabacdi reels-ka iyo ku furan arki doontaa reels-ku markaasi waxyaalaha isaguna aad ku wanaagsan weeyaan in Facebook lacag looga sameeyo intii TikTok soo baxday reels-ka iyo shorts iyo waxba soo baxay markaasi iyaguna waa sidaas haddaba haddii halkaa kaga nimaadno waxaa yidhaha Facebook profile iyo sida lacagta looga sameeyo waxaan tegi doonaa Facebook page iyo sida lacagta looga sameeyo okay haddii aan xagga mobilka kasoo noqono markaasi waxaan usoo noqon doonaa xaggan computerka ayaan kaa tusanaa isagana page-ka isla xagga mobilkana waa kaa tusi karaa waa iska easy
dhinacana waa kaa tusi doonaa insha allah. haddaba haddaynu xaggan nimaadno Facebook waxaad kusoo qortaa Google-ka markaas waxaad iman doontaa Google-ka kabacdina waxaad kusoo qori doontaa bustanis.facebook.com ama waxaad kusoo qori doontaa sidaan kuu sheegayay marka waa ka hor Facebook Studio. marka Facebook Studio kusoo qorto san ayuu iman doonaa ama meeshan ayuu ku keeni doonaa. marka kuma tusi doono profile-kaaga laakiin wuxuu ku tusi doonaa profile-kaaga page-ka ay samaysan sababta mobilka ku tusaya qaybta profile-ka. marka wixii pages ayuu halkan kugu tusi doonaa. marka pageskayga qaar kamid ah ayuu tusay oo kadar online ku qoran tahay. marka page-kan ayaan eegana haddaba isagana wax shuruudo ah ee laga rabo si uu lacag soo sameeyo. marka inta ugu badan dadka pageska ay xooga saaraan oo ka fudud marka la eego xagga inkastoo profile-ka beri dhaweed ahaa uu iska cusub yahay oon rajaynayaba in profile-ka uu ka wanaagsanaado Facebook page-ka oo dee sida inta ugu badan dadku ay wax isticmaalaan profile. marka khasab bay noqotay in iyaguna ay profile ay sida YouTube oo kale ay lacag laga sameeyo. marka waxaan ku tusi doonaa haddaba isagana shuruudaha lagaaga baahan yahay Facebook page si aad lacag uga samayso. okay markuu meeshan ku keeno markuu saa ku keeno page-kaaga ugu horreeya kusoo furi doonaa. haddii dhowr page aad leedahay meeshaas ku dhufanaysaa kabacdina page-ka kale way kusoo hoos jiraan waad dooran doontaa kolka page-ka aad doonaysid inaad lacag ka samayso iyo marxaladiisa halkay marayso. haddii haddaba aanad page lahayn sideeba loo sameeyaa baad isweydiinayaan. page-ka waxaan ku yar noqonnaa markaasi Facebook dhinacan waad arkaysaa waxaa kugu qoran groupeski iyo feedski iyo wixii baa ku qoran. hoos baad soo degi doontaa meeshan ku qoran tahay Seymour ayaad ku dhufan doontaa. haddii ay ku kala baxsan tahay noocyada oo computer screen-kiisu weyn yahay aad isticmaalayso marka kor baad usoo jiidi doontaa. meeshan waxaad ku arki doontaa hoose meel ay ku qoran tahay pages meesha ay ku qoran tahay arki doontaa. kabacdina si aad page u samaysato meeshan ayaad ku dhufan doontaa oo markaad wax page hore lahayn ama page aanad lahayn aad ugu talagashay inaad aad lacag ka samayso. sidoo kaleeto waxaad kuwa hore aad leedahay waa caadi kuwa kalena waad samayn kartaa. marka limit ma laha Facebook pageska aad samayso oo limit laguma xidhayo. halkan waxaa iga muuqda pages aan sameeyey oo dhowr page ah. marka haddii haddaba aad u baahan tahay inaad page cusub samayso meeshan ay ku qoran tahay create new page ayaad ku dhufanaysaa. kabacdi markaad saa ugu dhufato create new page waxaa kuu soo bixi doontaa shaashadii aad ka samayn lahayd page. okay meesha u sarreysa waxaad ku qori doontaa magaca aad u bixinayso page-kaaga. aan iskaga qoro aan khadar keliya iskaga qoro page-kayga macnaha khadarkaas keliya aan u bixinayo. meeshan categories baa iyagana ku qoran waxaad dooranaysaa macnaha waxyaalaha aad doonaysid inaad hadhow ka hadasho ayaa halkan ku qoraysaa. markaasi meeshani kolba haddaba waxa wanaagsan kolba waxaad adigu aad soo gudbinayso content creator aad tahay content creator baad ku qori doontaa. haddii aad waxyaalo kale soo gudbiso waxyaalaha soo gudbiso wax la hilmaana ayaad kusoo qori doontaa. okay hadda haddaan aniga aan soo doorto kuwa ay ka mid yihiin sports iyo fitness baan tusaale mid ahaan kasoo qaadanaya waa iska tusaale aniga xagga teknolojiyadda haddaan eego informational technology iyo si common aan soo dooranaya. sidoo kaleeto waxaan iska soo dooranaya socialka waxyaala socialka la xiriiro kaleeto. markaad waxaad doonayso way ku jiraan waad soo dooran kartaa. khasabna maaha in wixii aad doonaysay hadhow aad lacagta slide ka samee oo tusaale af Soomaali ku hadli doontaa ama warar ama waxba soo gudbin doontaa. haddii aad warar soo gudbiso tusaale news baad iskaga darsanaysaa. marka newspaper iyo news media waxaas ku qoran doonaa. muhiim maaha markaasi waxa kaliya waxa la doonayaa si hadhow toole waxaasi macnaha categories ama shayga aad ka hadlayso loo ogaado un bas kaliya laakiin khasab maaha inaad waxa ka hadli doonto halkan aad ku soo qorto. kabacdi waxaad samayn doontaa intaas markaad soo dhamayso hotspot soo bixi doontaa waxaan waa optional. intaas soo bixi waxaad oranaysaa create page. page baa kuu soo bixi doona ama page cusub ayay noo samaysan doonaa. mobilka inta badan waxa laga yaabaa inuu page markaad samayso uu ku diido laakiin waxaad samaysaa Google ka tag kabacdina Facebook-kaaga soo gal adoo isla mobilkaaga isticmaalaya. kabacdina waxaad soo gelin doontaa waxaad ku qori doontaa halkan ayaad sidaan page u soo galay ayaad soo geli doontaa. markaas si toos oo dhib yar ayaad u samayn doontaa. meeshan wuxuu igu leeyahay website geli macnaha website-kaaga halka geli buu halkan phone number iyo waxaas geli buu halkan address-kaaga waxaas geli buu yiri oo macnaha inta buuxbuuxi buu. marka waa si Facebook-kaaga health-giisa kor loogu qaado. soo kaleeto waa iska dhaafi kartaa wax dhibaato ma laha. laakiin haddii aan tusaale ku tuso meeshan Facebook ma isticmaalayo ayaad oran doontaa halkan haddii aad halkan numberka soo kaleeto numberka waa isagana waad gashan kartaa waxba dhibaato ma laha. haddii aan halkan hadda gelino marka waad iska gashan kartaa lambarkaaga Soomaalida hadda waad iska gashan kartaa Soomaaliya ayaad kartaa. halkan haddaan telefoon numberkayga hadda geliyo meesha u saarsan marka telefoonka soo geliso waxa suurtagal ah inuu ku dhaafiyo. marka telefoonka iyo magaca soo geli iska soo dhaaf markaasi. hadda waan soo dhaafay telefoonka kaliya tan soo geliyay meesha xataa webteedna soo gelin. meesha wuxuu ku leeyahay picture ku dar oo sawir iyo wax ku dar macnaha halkan sawir ayaad ku daraysaa halkan adiga hawsha si wadan doonaad garanaysaa. halkan sawir sare iyo sawir hoose laba sawir ayaad ku daraysaa.
meeshaas sare waxaad kusoo dari doontaa sawirka profileka ku saarnaan doona oo meeshan ka muuqan doona xagga dambe sawir ka muuqanayaan halkan ayasana kaga dari doontaa laba sawir baadaa kusoo dari doona hadda next aan iska odhanaya tusaale uma kuu tusaya waa iska fudiya macnaha waxaa kusoo dardaraysaa markaas hadda wuxuu yiri meeshan whatsapp geli whatsapp number macnaha si pagekaaga uu noqdo mid professional halkan whatsapp numberkaaga ayaa iska gashan doontaa adiga hadda laakiin aniga waxaan odhanayaa next waan iska soconaya wuxuu yiri friendskaaga kugu jira facebook ku invite gare hadda waxaa kuma invite garanayo adiga waad iska invite garaysan doontaa si followers aad u hesho okay meelahan iyagana sidoo kale taas ka furnaata waad iska soo dhaafaysaa kadibna next ayaad odhanaysaa adiga mar walba waxaan kugula talinayaa inaad shuruudahan aanad dhaafin oo iska soo buuxiso waayo healthga ama tayada pagekaaga ayay kor u qaadi doontaa okay saas haddaba pageka loo sameeyaa ama facebook page saasaad u samaynaysaa oo pageka saas kugu diyaarsanaan doonaa kabacdina waxaa kusoo kacaya dashboardkan hadda inoo soo socda saa ayuu kugu muuqan doonaa marka xaggan sawiradii ayaa ka muuqan doonaa soo gelisay ayuu isaguna kugu diyaarsanaan doonaa hadda wuxuu ii sheegayaa in facebook pageki uu diyaar yahay oo aad reels soo gelin karayso sawiradii oo aad soo gelin karayso videogii laakiin meeshan inaad buuxi oo shuruudii aan ku sheegayaa wixii soo samee macnaha wixii aan ku sheegayaa soo buuxi okay marka intaad soo dhaafto internet buuxin doonto marka waxay buuxiso pagekaagu san ayuu kugu noqon doonaa mid professional ah hadda pagekii san ayuu diyaarin ugu yahay haddaba pageka si lacag looga sameeyo waxaa loo baahan yahay shuruudihiisii inaad buuxiso okay hadda pageshkiga caadiga ayaan ku noqonaya aniga si aan kuu tuso maadaama waxyaalahan badankooda aan soo wada buuxiyey okay hadda waxaan kusoo noqday pagekaygii marka pagekaagu sanoo kale ayuu noqon doonaa isaguna mid diyaarsan oo u diyaarsan in aad kusoo gudbiso wax ama aad shay kusoo bandhigto ama uu facebook ku aqbalo oo kuu saaro xayeysiinta okay pageka waa kana san ayuu diyaarsay haddaba waxaan tegi doontaa si aan kuu sheegayay marka pageka saa usoo diyaarsato business.facebook.com guurka ama facebook studio labadaba waad kusoo qori kartaa marka wuxuu keeni doonaa sida dashboard keliya tuu keeni doonaa oo kana okay haddaba markuu hadda halkiina keenay waxaa ku tusi doonaa shuruudaha iyo waxaa liiga baahan yahay meeshan bidixda ayaad kor u jeedi doontaa kabacdina meesha ku qoran tahay monetization ayaad iman doontaa ama monetization meesha ku qoran tahay okay haddaba shuruudaha liiga baahan yahay meeshan ayaan ka raaci doonaa marka waxa lagu yiri wax dhibaato ama waxyaalo khalada kuma aragno pagekaaga waa okay macnaha meeshan haddaba waa kana Instagram ads-ka wixii la xiriira ama xayeysiinta lasoo dhexgeliyo muuqaalka lasoo dul saarayo ama lasoo hoosgelinayo shuruudaheeda ayaa meesha lagu sheegaya marka meeshan wuxuu kugu soo qori doonaa hadda wixii lagaaga baahan yahay meesha waxaa ku qoran 5k followers soo gaadh waa marka aad isticmaalayso facebook profilekii wuxuu ku qoran 5k followers soo buuxi inta waa intaan kasoo sheekaynay markii dhaweyd kusoo marray xaggii hore facebook pagekii waxaan ujeedaa facebook profilekii marka facebook pageka waa kan isaga shuruudihiisu dhinacan ay ka muuqdaan oo waa kuwana waxaa lagaaga baahan yahay inaad soo gaadhiso 10k followers ama 10,000 oo follower inaad haysato sometimes marka waxaa jira updateyo la cusboonaysiiyo oo 10k-ga in hoos looga soo dogo waa suurtagal oo 5k soo buuxi lagu dhaha laakiin mostly waxaa lasoo buuxiyaa sida caadiga waa 10k followers ama 10,000 oo qof kugu xidhan yihiin okay marka soo buuxiso 10k followerska waxa kaloo lagaaga baahan yahay inaad soo buuxiso waxa la yiraahdo 600,000 oo daawasho 600,000 ee daawasho waxa weeyaan macnaha in aad muuqaalada caadiga ah in la daawado 600,000 oo minute in la daawado way macnaha muuqaalada caadiga ah soo kale xakan hoose waxaa ku qoran 5 active videos macnaha waa 5 muuqaal oo active ah oo ku jira sidii hore soo sheegnay si lamid ah waa in 5 muuqaal oo active ay ku jiraan pagekaaga okay haddaba meeshan xiyadana waxaa ku qoran waa in ay 600,000 ee daawasho waa inay ku jiraan 60,000 oo daawasho oo ah muuqaalada live-ka macnaha 600,000 waxaa la doonayaa in ay ka mid 60,000 oo ka mid ah inay yihiin muuqaalada live-ka ah marka muuqaalada live-ka ayagana si gaar ah ay xog u saaraan muuqaalada live-ka aad u fiican yihiin marka haddii 600,000 aad soo buuxiso waxba awood ma si saaraan 60,000 laakiin 60,000 oo daawasho iyagana waa laga doonayaa oo ah muuqaalada live-ka ah macnaha laakiin 600,000 bay ka mid yihiin iyaguna hadda waxaa isweydiinaa shuruudihii aragnay oo shuruudahan ayaan u baahnay soo buuxiyo laakiin waxyaalo kale ma jiraan oo iyaga laga baahan yahay inaan soo buuxiyo saan ku sheegay facebook waxaa qasaba inaad ka rarto wadankaaga sida wadanka Soomaaliya kale aad ka rarto gebigiisaba oo aad wadanka dibadda ah aad u wareejiso adigoo isticmaalaya Amazon ADS-ka ama isticmaalaya qof live ah oo wadankaasi dibaddiisa ku jooga
labada baad samayn kartaa laakiin wixii shuruudii waa intana waad soo buuxinaysaa shuruudahan waa khasab meel walba Facebook wax ka furnaado waa shuruudaha soo buuxiya waxaad iska ilaalisaa oo haddaba xagga digniinta iyadana aan kaaga digayaa in aad wadanka adigoo jooga isagoo qofkaasna isticmaalay adiguna aad isticmaasho haddii wadankaaga ay 2 cisho ama 3 cisho meelahaas lagu isticmaalo wadan aan la ogolayn macnaha yiraahdo waliba wadan aan la ogolayn oo Soomaaliya waxaas ka mid yihiin haddii aad ku isticmaasho Facebook-gaaga ama Facebook page-kaaga ama Facebook profile-kaaga aad ku isticmaasho isagoo ay lacagta ku furan tahay waa laga xiri doonaa haddii aad halkan ku isticmaasho iyadoon lacagtiiba lagu furina Facebook soo aqbali maayo oo wuxuu ku odhanayaa weli ma tiid eligible buu ku odhanayaa marka waxa wanaagsan mar walba Facebook-gaaga inaad xagga u wareejiso haddii kaleeto nidaam kale lagu jira ama wada kale oo samayn kartaa wadada kale waxa weeyaan in qofka wadanka dibadiisa jooga in uu Facebook Pro ama inuu Facebook cusub uu ku furo taasina aad u fiican tahay Facebook cusub uu ku furo page-kiisa soo samayso ashruudiisana soo bixiso kaaga kan aad iska isticmaasho oo isaga si caadi ah aad wadanka iska isticmaasho taasina waa fursad kale aad u wanaagsan oo ama trick kale oo aad samayn karayso marka taasina aad buu muhiim yahay isna waad samayn kartaa soo kaleeto si aan ku sheegay ADS-ka adoo ka furanaya oon cidnaba u baahan ayaad waxaad samayn doontaa inaad Facebook Pro inaad Facebook cusub meeshaasi ka furato marka shuruudaha ayaa muhiim ah shuruuduhu waa intaasi mar haddaan si guud kugu soo dul maro marka koowaad number 1 waa inaad haysataa 5 muuqaal oo active ah oo 5 muuqaal nadiif yihiin oo 3 maalmood ugu dambeysay ku jiray page-kaaga ama profile-kaaga laba waa inaad haysataa dad profile isticmaalayso waa inaad soo bixisaa 5k followers-ki ama 5,000 oo follower waa haysataa soo kaleeto waa inaad haysataa 60,000 oo daawasho haddii aad isticmaalayso profile haddii aad page isticmaalayso waa inaad 10,000 oo follower haysataa iyo 600,000 oo daawasho intaas way muhiimadiisa ugu ballaaran Facebook waxaana iska ilaalinaysaa in aad wadanka dhexdiisa waxaas ku isticmaasho ka doonayso inaad ka samayso lacagta wixii su'aale ee aad ka qabtaan insha Allah comment-ga aad ku soo qori doontaan waan ka jawaabi doonaa waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan aad ka wada faa'iidaysateen muuqaalka labaad waxaan ka dhigi doonaa insha Allah sida loo furto Amazon ADS ama Amazon ADS wuxuu yahay baan sharxi doonaa markaan waxaan ku tusi doonaa sida Facebook-gaaga uga soo dhex kicin karto Amazon aad iyo aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh